Shalom. I'm Danny. I'm a student. I read Bible, studying more about the Bible. magacayga waa Daani waxaan ahay arday Bible-ka ayaan akhriyaa asluubka iyo aadaabta guudna waan daraasayaa waxaan akhriyay kutubta islaamka kuwa kamid ah hadda ma doonayo inaan gudaha u galo su'aalo ku saabsan Qur'aanka iyo Bible-ka arintu waxay calaaqa la leedahay saaxiibkayga aan aad u jeclahay ee magaciisu yahay niga raalaha magaciisa ma sheegayo isagu xaas ayuu leeyahay wuxuuna qorsheynayaa inuu islaantiisa furo waxaan ogaaday sababka uu islaantiisu furayo inuu yahay sabab iska badihi ah waxba ahayn midda labaad waxaan akhriyay nin cumrigiisu gaarayo 112 sano magaciisuna yahay Muhammad una dhashay dalka Soomaaliya wuxuu guursaday gabar jirta 13 sano magaceedana la yiraahdo Safiya aniga aad ayaan ula yaabay maxay la arintaas jawaab uma haynin waxaan weydiiyay saaxiibadeyda mid kamid ah wuxuuna ii sheegay in arintaas tahay wixii ay barteen una qoran oo ay raacsan yihiin oo aaminsan yihiin internetka ayaan aaday maxay la waa wadada ugu fudud ee wax laga baari karo aniga ra'yigayga midda kale maxay la aniga fursad uma helin inaan noqdo sida walaal daakir oo kale haddii aad fursad isiido wixii aan internetka ka helay ayaan ku akhrinayaa oo ku saabsan waxyaabaha Muhammad uu haystay markaas iyo cilaaqadii kala dhaxaysay arintaas ma saxba qadiyadaas iyo arintaasna xalkeeda migu kaalmeyn kartaa si aan saaxiibkayga ugu tago oo aan u sheego xaqiiqatan arintan inay tahay tacaaliimta Quraanka And I can go to my friend and say that this is what exactly the Quran teaches. ma inaad wax akhrisaa doonaysaa mise jawaab ayaa doonaysaa marka koobaad waan ku akhrinayaa laakiin si jawaabta raali kama tihid soo sida maaha si kastoo ay ahaato su'aashayda inaad ka jawaabto waan rajaynayaa haddii aadan raali ka ahayn jawaab ayaan ku siinayaa marka iska daa waxa ay dadku oranayaan balse haddaad raali ku tahay jawaabaha agtaada ah arintaas way kugu filan tahay haddaadan si raali ka ahayn jawaabta ayaan ku siinayaa si toos ma akhrin karaa hagaag okay akhri waa dhimale walaal 5 jumlo ku soo koob haddii kale naga daa iyada dhan baa akhrin adoo okay sidaas ayaan sameeynaya aan kaaga soo qaado saxiixul bukhari mujalladka 7 kitaabka 62 jaabir ibn abdullaahi waxa uu yiri waan guursaday nabiga ayaa igu yiri sallallahu alayhi wasallam maxaad guursatay waxaan ku yiri waxaan guursaday gabar garoob ah nabigu wuxuu igu yiri oo gabdhihii yaryaraa iyo ciyaartoodii maxaad ku nacday jaabir ibn abdullaahi wuxuu leeyahay nabiga ayaa igu yiri sallallahu alayhi wasallam maxaad u guursan weyday gabar yar oo kula ciyaarta adna aad la ciyaarto aniga arintan aad ayaan xogaay tashwiish ayaa iiga furan arintan masayidkeena maxamed wuxuu u daneynayaa ay ahayd amase markaan akhriyay saxiixul bukhari mujalladka 5 This is the preference of Hazrat Muhammad, or after reading Bukhari volume number 5. adiga muhiimadda waxaad siinaysaa akhrinta xadiidka wax ka badan su'aashaada soo sida maaha waan helay inaan idin akhriyana waan haddaad su'aal weydiido waan kaaga jawaabayaa laakiin se adiga qof kale jawaabtiisa ayaad akhrinaysaa maxay la xadiidka ayaad soo qaadanaysaa xadiidka si toos ah u soo qaado maxay la jawaabtina adiga ka maqlaayaan raba mar kale adiga haddaadan garanaynin laba lagu daro ha ii sheegin waxa ay dadka kale oranayaan jawaabta toos ayaan ku siinayaa waa 4 iska dhaaf waxa ay dadka kale dhahayaan ha dhahaan 7 ama 8 ama 10 sida darteed ayaan halkaan u imid haddaba jawaabaha dadka kale maxaad u akhrinaysaa haddaysan kugu filnayn okay sax ha taas waxay la macno tahay inay waajib igu tahay inaan su'aasha iyo marka aad wax soo qaadataba aan gadaasheed ka hadlon ka jawaabo soo sida maaha hagaag labadaba waan sameey doonaa dhib malaha niyada muhiim ah haddii niyadaadu ay tahay inaad ogaato muxuu u guursaday Muhammad ka jira 112 sano gabar jirta 13 sano jawaabtu waan ku sii doonaa laakiin se adiga sidoo kale waxaad doonaysaa jawaabtii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sax haddaba si toos ah ii weydii marka ma ahan inaad akhrido jawaabo aadan raali ka ahayn waana jawaabta aad ka heshay internet darteed su'aasha ku saabsan xadiidka si toos ah ii weydii adiga aan ku wareegin mawduuca kaaga jawaabayaa labada su'aal hagaag waxaan rajaynayaa jawaabahaada inay insha Allah arintaas adiga ayay ku noqonaysaa haddaan ku iraado laba lagu daray waa 4 oo tiraado maya saas ma ahan waa 5 markaas aniga kuma kaalmeyn qaado doonaa waxa aad oranayso laakiin se waxaan rumeey doonaa wixii ay suurtagal tahay inaan rumeeyo waxa waajib ah inaad rumeyso waxa aad rumeysan tahay maxay yeelay ma awoodid inaad rumeyso waxa aan rumeysanahay ilaa inaad rumeysato mooyee to believe you can't believe what I believe until you believe what I believe. True, sir, because it's not on. sax maxay yeelay waxyaabo badan oo iska soo horjeeda ayaa jira iga raali haw maxaad dhahday adoo mahadsan ii dhameystir maxay yeelay jawaabtina ka maqlaan rabaa waxa ku saabsan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waanu imaan doonaa midda kale ku saabsan ninka magaciisa la yiraahdo Muhammad sida aad sheegtay waa qof ka socda waa qof Afrikaan ah sax Soomaaliya Soomaaligaasi gaaraya 112 sano ee guursaday gabadha 13 sano jirta waa guurkiisii shanaad hadda waqtigan ma ahan 5 xad laga yaabay midood inuu guursado haddana furay The पांचवा शादी पर 1-2 को डिवोर्स देंगे हो सकता है ना at any given time you can't have more than 4. jawaabtaan u imaanaynaa islaamka waxa ku suurtagal ah inaad guursato gabadha markay qaan gaarto
waad guursan kartaa markay gaarto sanadka qaangaarka waa sidaas islaamka marka ninka loo fiirsho wuxuu guursan karaa laga bilaabo markuu qaangaaro ilaa uu ka dhinto ciduu rabo guursan karaa waa qiyaarkiisa adigu ma guursan lahayd haweeney ka weyn 15 sano maya waa qiyaarkaaga laakiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa uu sameeyay waa qiyaarkiisa sayyidina maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu jiray 25 sano wuxuuna guursaday khadiija radiyallahu anha oo jirta 40 sano adiga ma aadan sameeylahayn mana ku dhahayo waa waajib inaad sameedo waa qiyaarkaaga asagu wuxuu doonay inuu guursado haweeney ka weyn 15 sano maxay yeelay waxay ahayd mid alla ka cabsi badan oo xalaal meerasho badan yaanahay annaga markaan ka soo horjeesanayno asaga jeclaaday arintaas haweeneyduna way jeclayd maxaa yeelay iisug iida aan ku dhameystiro walaal adoo mahadsan ha iga goyn hadalka su'aashaada ayaad soo deysay adiga okay waan ka cudur daaranayaa mudane waan aqbalay cudurdaarkaaga dhib ma lahan haddaba arrintu waxay ka dhaxaysaa ninka iyo xaaskiisa yaanahay markaan ka soo horjeesanayno annaga haweeneydaasi waxay doonaysaa inay madaxeeda asturto adigu markaas waxaad ku leedahay madaxaada ha asturin maxaa dhacay waxay rabtaa inay madaxeeda daboosho madaxweynaha Faransana wuxuu leeyahay waajib maahan haweenku inay daboolaan madaxyadooda maxaa dhacay haddii uu rabo inuu haween ku raaxaysto ha aado xeebaha Miami muxuu arrintaas uga raadinayaa Faransa dhexdeeda waxaas wax aqli ku dhisan maaha waa caburin haweeneydaasi doonaysa inay madaxeeda daboosho ma ahan qofka dareemaya cariiriga waa asaga qofka dareemaya cariiriga maxaa dhacay asaga dareemaya cariiriga maxaa yeelay ma uu awoodo inuu ku raaxaysto haweenka mushkiladu asaga heysataah haweeneyda madaxeeda dabooleeda ma hadda ninkan jira 112 sano caafimaadku wuxuu noo sheegayaa in xitaa ninka gaaraya 112 sano inuu wax dhalo inay suurtagal u tahay inuu wax dhalo waa suurtagal soo sidaa ma aha mudane aniga dhakhtar ayaan ahay asoo wuxuu doonayaa inuu guursado gabar 13 sano jirta waa ay qaangaar maxaa adiga dhibaatada ku haysato adiga gabadhaada ma siinaysid adigu ha siin waxaan ku iri walaasha waa inaad u guurisaa maya haddii labada waalid iswaafaqeen gabadhuna sidoo kale ay waafaqday laga yaabay gabadha xitaa in ninkaasi ay ka heshay gaaraya 112 sano inay dhahdaan laga yaabaa alla muxuu nin alla ka cabsi badan yahay oo xalaal meerasho badan wuxuu xasuusinayaa saxaabadii nabiga sallallahu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam haweeneyda waxa loo guursadaa 4 maalkeeda sharafteeda quruxdeeda iyo diinteeda kulli baan midda diinta u saaxiibka ah haddii gabadhaani 13 sano jirta ay ka heshay ninkan jira 112 sano diin aniga waxaan doorbidayaa waa haday ogaatay inuu diin iyo khuluq iyo akhlaaq wanaagsan u saaxiib yahay ma u diidi doono inaan gabadhayda siiyo hadaan ogaado inuu nin akhlaaq la yahay ma u diidi doono hadduu gabadhayda gacanta qabanayo oo jannada la aadayo laakiin waa markaan iska hubiyo hadduu yahay nin diin u saaxiiba oo saxaabadii nabiga xasuusinaya sayyiduna Umar Abu Bakar Uthman Ali Allah ka raal noqdo dhamaantoode maxaan ugu diidayaa laakiin maanta waxaan arkaynaa waxa loo batay xagga quruxda iyo maalka aniga ma dhahayo ninka Soomaaliga waa nin diin u saaxiiba maxay aniga ma garanayo aniga xitaa ma garanayo anigu ma oogi laakiin arintaas suurtagal miya ha laakiin suurtagaladu aad ay daciif yihiin arintaas suurtagal miya ha laakiin suurtagaladu aad ay daciif yihiin maxaa diidayo hadii gabadhu ayadu ay jeceshahay sida darteed waxaan ku sheegay muxaadaradayda guurku inuu dhameystirmo waa suurtagal hadii ninka iyo haweeneydu ay iswaafaqaan oo is afgartaan taas macnaheedu ma aha mustaqbalka hadii nin 50 sano jira oo yimaado oo gabadheeda guur ka dalbado inaan waafaqi doono ma aha taas macnaheedu waxaan iriyo kaliya hadii uu yahay nin diin u saaxiiba sida khulafaa raashidiin oo kale markaasina badal kale oo ka wanaagsan aan helaynin ma ahan inaa u diidno laga yaabay gabadhaas in ninkan ku aragtay diin waa laga yaabaa anigu ma oogi maxaa yeelay lama kulmin ninkaasna waa laga yaabaa inuu asna gabadhan ogaado inay tahay gabar diin u saaxiiba waa laga yaabaa anigu ma oogi haddaba haddii ninka iyo gabadhaas iswaafaqaan maxaa anaga naga galay arrintooda u galaynaa maxaan xuquuqdooda u faragashanaynaa laga yaabay adigu inaad qabto haweeney ma oogi inay fiican tahay ama xun tahay adigu waxaad aaminsan tahay inay quruxsan tahay shakhsi kale wuxuu aaminsan yahay inay xun tahay midkoodna inuu ku dhaha laga yaabaa maxaad u guursatay iga raali ahaw sheekada adiga kuguma socoto xaaskaaga inuu quruxsantaa laga yaabaa ma sha Allah laakiin midkood inuu ka soo horjeestaa laga yaabo yiraahdo maxaad u guursatay haweeneydan xun markaas waxa la adiga maxaa way dhibaatada ku haysato aniga waxaan u arkaa inay quruxsan tahay maxaa ka galo u soo galaysa arintaas ma xanaaqaysaa mise arintaas ma ka xanaaqaysaa mise quruxdu waa arin nisbi ah oo qofba si u arko midkooda imaana wuxuu leeyahay walaal magacaadu soo rabaha ahaado markaas xaaskaagu aad u fool xun tahay markaas waxaad ku leedahay war naftaada ku mashquul tani waa xaaskayga maxaad u soo galaysaa arintaas u fargashanaysaa hadii midkood xaaskaada uu ihaanaysto arintaas waa khiyaarkaaga arinta ku saabsan ninkan Soomaaliga ah ee jira 112 sano iyo gabadha 13 sano jirta waxyaabaha suurtagalada ah xitaa uba dhiganto 100%
eber dhibic hal laakiin saade ayagu iswaafaqeen maxaa anaga arintooda u faragashanayna waxaan u imaanaynaa jawaabta su'aasha ku saabsan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam muxuusan u guursanin macnaha jaabir ibn abdullah haweenay yar muxuusan u guursanin oo gabar nabiga sallallahu alayhi wasallam waa uu og yahay waxa uu yahay saxaabiga waxa jiray qof u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam oo weydiiyay marka aan soomayo ma ii suurta galaysaa inaan xaaskayga dhunkado nabiga sallallahu alayhi wasallam waa uu jawaabay wuxuu yiri haa way ku suurta galaysaa saxaabi kale u yimid oo weydiiyay ma ii suurta galaysaa nabi allah inaan xaaskayga dhunkado nabigu wuxuu ugu jawaabay maya saxaabada way weydiiyeen waxay ku dhaheen kii koobaad waxa tiri haa kan kalena waxa tiri maya maxaa dhacay nabi allah maxaa yeelay nabigu wuxuu ogaa in saxaabigaas hore oo doonistiisa iyo dareenkiisa xakameyn karo marka uu sooman yahay marka uu xaaskiisa dhunkado inuusan arin kale oo xadgudub sameynaynin shakhsiga labaad laga yaabay marka uu xaaskiisa dhunkado in soonkii uu ka jabo arrin kale ayuu gudbayaa macnaha nabiga waa uu og yahay aniga iyo adigase ma ogin waa isku mid marka laga yaabay nabigu inuu ogaa sallallahu alayhi wasallam in jaabir hadii uu guursaday gabar garoob ah laga yaabay inuu mid kale doonayay marka waa uu la taliyay laakiin se maxamed muxuu sameeyay xaaskiisa ugu horeeyay ee uu guursado waxa ay ka weyneed 15 sano adiga arintaas ma sameynaysid waad ii sheegtay arintaas sax ها نبيgu waa uu og yahay maxaa yeelay asaga waxa uu ka helay xalaal meerasho alla ka cabsi waa sayyidada khadiija radiyallahu anha sida darteed ayadu waa sayyidada haweenka ahlu jannaha nabigu waa uu ogaa aniga dhakhtar ahaan hadda dadka jiran mid kamida dawo gaara ayaan siinaya mid kalena dawo kale ayaan siinaya markaas waxaad weydiinaysaa labada dawo maxaad markaas waxaan kugu leeyahay maxaa yeelay dhakhtar ayaan ahay waxaan sameynayana waan ogahay adigu dhakhtar ma tihid nabigu talooyin kala duwan ayuu dhiibayay maxaa yeelay dadka uu siinayo iyo meelaha ay kala joogan ayaa kala duwanaa adigu ma ogid laakiin nabiga waa uu og yahay ma waxaad aaminsantahay nabigu waxa uu yiri inay qalad yihiin ma uusan qaldamin dadka qaar kood haweenka yar yar ay jecel yihiin kuwa kalena kuwa waaweyn ay jecel yihiin marka adiga xaq uma lihid inaad tiraado waa qalad waa talo nabigu uu sheegay sallallahu alayhi wasallam ma wax qaladaha jira ma ya labaduba waa ay saxsan yihiin laakiin safiri dhammaan nabigu haweenka uu guursaday waxa ay ahaayeen kuwa la furay ama kuwa carmal ah marka laga soo reebo hal mid oo gabar ah or they were widowed mudane mawduucu ma ahan bilaabida rabitaan iyo la'aantiisaba walaal su'aaladii weydiida anigana waan ku jawaabayaa ani waxaan ku weydiinayaa hadii qof oo mucaarado mudane quraanku muxuu kale yahay dadkaas waa taa su'aashayda aniga dadka sidaas wax u guursanaya arintaas hayaab geliso ama yaab gelini quraanku wuxuu leeyahay xalaal idin ma aha inaad haweenka dhaxashaan si xoog ah suuratul nisaa suurada 4 aayada 19 laakiin labadooda haday arinta doonaan anagu maxaan ugu diideynaa yaa nahay anagu markaan u diideyno maxaa waa anaga arinta cariiriga nagu haysta aniga su'aal ayaan ku weydiinayaa hadii gabadhaas yar laga helo oo akaansho isla ninkana laga helo oo akaansho kale adiga dhibaatada ku haysata maxaa waaye ii sheeg arintaas ma caafimaad darra ku jirto waa maya ma awooda inuu wax dhalo haa maxay tahay dhibaatada jirta marka hadda kaba soo qaad midkood inuu ku yimaado ku yiraahdo maxaad u guursatay haweeneydan madow ama se maxaad u guursatay haweeneydan macnaha waxaan ka wadaa taas waa khiyaarkaaga islaamka haweeneyda kalarkeedu kama dhigayo mid sareysa ama mid hooseeda darajo ahaan nabi maxamed waxa uu sheegay waxa weeye tan ugu wanaagsan inay tahay tan diinta u saaxiibka hadda maxaa ninkani Soomaaliga ee 112 sano jira ka dhigay inuu guursado gabar 13 sano jira ma aqaan inaan ogaadana taas aniga muhiimadeeda ma aha arintaas arin aqli ku dhisan miya ha laakiin suurtagaladu aad ay daciif u yihiin waa isku mid nabiga sallallahu alayhi wasallam xaaskiisa aniga waxaan ku weydiinayaa hadii haweeneyda iyo ninkuba iswaafaqaan adiga maxaad u faragashanaysaa go'aankooda xaq miyaad u leedahay inaad faragashato su'aashaas ayaan ku weydiinayaa ma waxaad xaq u leedahay inaad faragashato marka ninka iyo xaaskiisu ay sameynayaan waxa ay doonayaan oo aan ka soo horjeedin quraanka xitaa aan ka soo horjeedin xuquuqdaada ma ka jawaabaya ha ka jawaab mudane mar kale ha isjeclaadaan ama yees isjeclaan aniga arintooda ma faragashanayo laga yaabay inay jeceshahay ninka 112 sano jira ama uu jecel yahay gabadhaas 13 sano jirta laakiin su'aasheedu waxa weeye nusuusta quraanka arintaas oo kale maxay uga jawaabaysaa walaal jawaabteeda ma dhageysatay halbeega guurku waxa weeye in labada qof ay gaaraan xilliga qaangaarka labadoodu ma gaareen masamaya ma suurtagal ah gabar 13 sano jirta inay qaangaar noqoto maya ama ha ma garanaysaa jawaabta maya inay qaangaarto suurtagal miya adiga ayaa dhakhtar ah adoo mahadsan ii sheeg wadanka Hindiya warbixin ayaa lagu faafshay magaalada Delhi oo ah hadii gabadhu ay gaarto sanadka 10aad wax walaac iyo walbahaar ku abuuraya ma jiraan waa sanadka 10aad waa arin dadka dhan ku dhax faafsan waxaan garanayaa boqolaal gabdhaha kamid oo ka yar 13 sano gabadha waad guursan kartaa marka ay qaangaarto laga yaabay adiga inaad waxyaabo kale oo gaar ah aad doorbidayso qaanuunka Hindiya waxa ku qoran in sanadka lagu guursan kara uu yahay 18 sano hadii aad tahay qof Hindiyaan ah
qaanuunka waad ka soo horjeesanaysaa haddii aad ku guursato 18 sano qaanuunka Mareykanka isaga waxa u xadidan 16 sano yaa sax marka ma Mareykanka mise Hindiya 16 sano ama 18 sano arintaas qaanuunka ay ku tiirsan tahay ha waa qaanuunkooda arintan aad su'aasha uga weydiinaysana quraanka ay ku tiirsan tahay waa jawaab wanaagsan Good answer. Very good. dhibaatada waxay tahay adig wax dhibaato kuma haysato marka ay Mareykanku xadidayso sanadka 16 sano haddaba quraanku markuu ku xadiday 13 sano waxa adiga mushkilada dhibaatada ku haysato aniga mushkilad jirta ma dhihin ma hadsanid waxaan u maleynayaa inaad jawaabta heshay quraanku wuxuu leeyahay maadaama ay iswaafaqsan yihiin labada qof wax dhibaato ma jirto Texas oo kamid ah Mareykanka qaanuunka Mareykanka waxa ku qoran in la guursan karo 16 sano iyadoon la gaarin Hindiya haddii aad guursato gabar 16 sano jirta arintaas qaanuunka kuma taalo waa xaraan laakiin Texas oo Mareykanka kamid ah haweenku sanad yar ay ku guursanayaan maxaa yeelay waa qaanuun u gaar ah iyaga waa suurtagal inay ku guursadaan 14 sano maxaad ku jawaabaysaa marka adiga ma ku waafaqsan tahay guurka haweeneyda ee Texas 14 sano mar kale ayaan leeyahay arintaas waa qaanuunkooda ha waa qaanuunkooda waad wanaajisay yaa tahay adiga markaad ka soo horjeesanayso aniga su'aal ayaan ku weydiinayaa Mareykanka haddii uu guursado nin jira 115 sano gabar jirta 14 sano arintaas Texas ma laga ogol yahay mise laga ma ogola tabcan waa laga ogol yahay marka aad u ogolaanayso reer Texas maxaa diiday quraankana in loo fasaxo arintaas adigu haddaad arintaas rabin ha guursan ma ogahay haddii aad doonayso inaad guursato gabar 12 sano jirta maya ma doonayo haddii aadan doonaynin waa go'aankaaga gaarka ah arintaas waa xaq uu islaamku siiyay adiguna waxaad rabtaa xaqaas islaamku siiyay rag iyo dumarka inaad ka dulqaado oo u diido islaamku xaqa ayuu siiyay waana xorriyada kala doorashada nabadgelyada Ciise Masiix macaaga ha walaal markaad leedahay Ciise Masiix kula jiro aniga waan raacsanahay tacaaliimta Masiix alayhi salaam waxa tiri assalaamu calaykum waana aayad kamid ah Bible-ka Gospel of Luke chapterkiisa 24 faqradiisa 36 waxa tiri shalom waana salaamu calaykum waa isku macno maya walaal shalom ma aha waa salaamu calaykum halkaad ugu laabanaysan ku sheegaya injiil Luuqa chapterka 24 faqrada 36 salaamu calaykum waa luqada cibriga assalaamu calaykum waa luqada carabiga wa calaykum assalaam ha walaal laakiin markaad leedahay masiixa kula jiro ma waxaad ula jeedaa tacaaliimtiisii mise wax kale waxa ku saabsan tacaaliimta iyo waxyaabaha uu baray Masiix Ciise alayhi salaam injiil Yuhanna wuxuu ku leeyahay chapterka 16 faqrada 12 ilaa 14 agtayda waxa ah waxyaabo badan si aan idinkugu sheego laakiin hadda uma dul qaadan kartaa markii uu yimaado midkaasi waa ruuxdii iyo dhabtii xaqa ahayd dhammaan xaqa ayuu idinku hanuunin doonaa maxaa yeelay naftiisa kama hadli doono laakiin wuxuu ku hadli doonaa waxa uu maqlo oo loo waxyoodo waxyaabo imaan doono idin sheegi doona nabi Ciise alayhi salaam wuxuu sheegayaa inuu imaan doono nabi ka dambeeyay magaciisuna yahay Muhammad sallallahu alayhi wasallam anigu waan raacsanahay tacaaliimta Masiix Ciise alayhi salaam sidaa darteed waxaan raacsanahay Muhammad sallallahu alayhi wasallam haddii aadan garanaynin tacaaliimta Masiix Ciise alayhi salaam arintaasi waa dhibaato ku haysata waad u noqon kartaa anjalka videoga ciwaankiisu yahay isku ekaanshaha ka dhaxeeya islaamka iyo Christianity-ga si aad macluumaad badan uga hesho halkan su'aalo kale hadaad qabtana baabuurka meesha ugu dambeeyay ayaad istaagi kartaa markii doorkaaga imaadana ay weydii يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اقرعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اقرعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه